راديوغا عنك الكفرادي وردبا تلقى هلايا هلايا اسمي ويا ويا اسمي ويا ويا اسمي ويا ويا اسمي ويا kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan halkan waa radio rasmi codka shacabka bariga Afrika oo aad ka dhageysataan boggeena internetka ee rasmimedia.com waxa la soo gaaray hadiyahan soo gudbin jirnay war wixii caalamka naga soo gaaray warkeena caawna wuxuu idinka imanayaa stuudiyaheena magaalada Gabiley waxaan idin soo jeedin doonaa aniga waa wariye qaamuus iyo wariye Burhaan Cabdullaahi oo si wada jira igala daadihin doona stuudiyaheena magaalada Muqdisho qodobada warka ugu doorka roona waxa kamid ah xisbiga wuxuu oo si kulul cambaariyay cunsuriyada xukuumadda Siinayo uu la bareeray wariye Saciid Maasim oo war ka soo tabiyay shir uu Faysal Cali Waraabe kaga qayb galay dalka Turkiga maxkamadda gobolka Hargeysa oo xukun xarig iyo lacag isugu jira ku riday Abwaan Cabdiwaahid Cali Gamadiid kulamo kala gooni oo ilaa xalay madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Saacid la kala yeelanayeen odayaasha dhaqanka iyo xubnaha baarlamaanka maleeshiyaadka Raaskaambooni oo iskaga baxay deegaanka Gura qodobada iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaad ku maqli doontaan warkeena caawa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ayaa maanta war-saxaafadeed uu soo saaray waxa uu si kulul ugu cambaariyay xukuumadda Siinayo cunsuriyadii ay kula kacday wariye Saciid Maasim oo war ka soo tabiyay shir uu Faysal Cali Waraabe kaga qayb galay dalka Turkiga war-saxaafadeedkan uu soo saaray xisbiga wuxuu oo ku saxiixnaa xogayaha warfaafinta ee xisbiga wuxuu Yuusuf Kaysa Cabdullaahi ayaa waxa uu dhignaa sida tan xisbiga cadaaladda iyo daryeelku waxa uu war-saxaafadeedkan cod dheer shacbi weynaha reer Soomaaliland ugu sheegaya in guul caalami ah xisbiga wuxuu ka soo hooyay shirkii caalamiga ah ee ka dhacay dalka Turkiga ee ay isugu imanayeen National Socialist ama xisbiyada hanti wadaaga caalamka shirkaasi oo lagu casuumay xisbiga wuxuu kaliya Soomaaliland ayaa hadana magaca xisbiga wuxuu kaga qayb galay shirka caalamiga ayaa ahaa xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Soomaaliland taasi oo shirka aad ka dhex arkaysay magaca Soomaaliland hadaba waxa wax la yaabaa oo laga yaqyaqsooda ah in warkii guusha qaran ahaa ee ay ahayd in TV-ga qaranku leeyahay soo gudbiyay bulshada reer Soomaaliland oo maamulka wasaaradda warfaafintu kala hortago wariyihii warkaas duubay caburin iyo cagajugleyn iyadoo lagu eedeynayo maxad u soo duubtay guusha mucaaradka u soo hooyay qaranka Soomaaliland mana aha markii ugu horeysay TV-ga qaranka iyo radio Hargeysa uu ku kaco fal noocan oo kale ah waxay ahayd sanadkan horaantiisii markii musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga wuxuu mudane Jamaal Cali Xuseen uu ka qayb galay shir ama kulan lagu casuumay oo ay isugu imanayeen dalka Mareykanka cariga Minnesota parliamentary iyo senatorska isagoo 169 mudane halka kula kulmay isla markaana musharaxu ka jeediyay khudbad taariikhi oo soo jeedisay indhaha caalamka taasi oo ahayd guul taariikhi oo soo hooyatay bulshada reer Soomaaliland oo ay ahayd in loo soo tabiyo shacbigeena caalamkana aan ka iibino laakiin nasiib darro warka waxa la dhigay hoosta oo waa la qariyay waxa soo dhami waxay cadeynayaan in xukuumadda iyo wasaaradda warfaafinta ay kala garan laadahay baahinta qarannimada Soomaaliland iyo dagaalka ay kula jirto mucaaradka hadaba isagoo aynu ognahay in TV-ga qaranku uu ka miisaaniyad badan yahay 4 wasaaradood oo qaranku leeyahay ayaa hadana waxa wax la yaabo ah mas'uuliyiinta TV-ga qaranku inay u dhaqmaan si ka baxsan milgaha iyo sharafta uu leeyahay xilka ay dadweynaha reer Soomaaliland ugu magacaaban yihiin taasi oo aynu ognahay in eexda iyo sharafta kala sareysiinta wararka ee xisaabta mucaaradka iyo kuwa xukuumaddu ay caadeysteen cid kastaabana ogtahay waxaana taasi u daliilay in shirarka jiraayid iyo barnaamijyada labada xisbi qaran ee mucaaradka ee u cidiyay wadani ay wax iska caadi ah ka tahay xagga TV-ga qaranka in laga soo deyn waayo ama hoosta la dhigo inta ay waliba ka soo duubtaan ugu dambeyntii xisbiga wuxuu waxa uu mar labaad cambaareynaya falkaas foosha xun ee wasaaradda warfaafintu kula kacday wariyaha Saciid Maasim oo ah muwaadin bilad sharaf mudan isla markaana aan geyn arrimaha fadeexada ah ee wasaaradda warfaafintu kula dul kuftay maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa saaka xukun ku riday Abwaan Cabdiwaahid Cali Gamadiid oo kamid ah hal-abuurka da'da yar ee Soomaaliland oo dhawaan maansaw curiye ku taageeray warkii khasaaraha badan dhaliyay ee lagu qaaday xarunta ganacsi ee ku taalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo sidoo kale abwaanku gabaygan ku amaanay hogaamiyaha al-shabaab Axmed Cabdi Godane abwaanka oo muddo ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa saaka maxkamadda gobolka Hargeysa waxa ay ku xukuntay 1 sano xarig ah iyo 1 milyan oo shilinka Soomaaliland oo ganax lacageed ah haatan aan idinku wareejiyo wariye Burhaan oo ku sugan stuudiyaheena magaalada Muqdisho oo halkaas inooga sii anba qaada
mahadsanid qaamuus. kooxo hubeysan ayaa maanta 3 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ku dilay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Heliwaa. 3 askari oo midkood ay ahayd haweeney ayaa lagu toogtay bartamaha xaafadda suuqa xoolaha ee magaalada Muqdisho. dad goob joogayaalaha ayaa rasmi media u sheegay in askartan weerarka gaadmada ah ay ku dileen kooxo hubeysan oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 6 ruux, kuwaasi oo horay u sii qaatay qoryihii ay wateen askarta la toogtay. dilkan ayaa loo maleynayaa in ay ka dambeeyeen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo inta badan fuliya dilalka noocan oo kale ah. falkan dilka kadib ayaa waxa goobta soo gaadhay sida caadada ah ciidamada dawladda Soomaaliya, kuwaasi oo halkaasi baaritaano ka sameeyay inkastoo aysan jirin cid ay falkaasi u soo qabteen. markasta oo dildhacana way sameeyaan baaritaanada noocan oo kale ah, balse ma jiraan wax natiijo ah oo ay ka gaadhaan baaritaanada noocan oo kale ah. dilka 3 askari ayaa imanaya xilli xalay guryo ku yaala xaafadda suuqa xoolaha lagala baxay 2 nin, kuwaasi oo isla maanta meydkooda lagu arkay xaafaddaasi. habeenkii xalay ayaa waxay kulamo ka kala dhaceen xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, kulamo looga hadlayay khilaafka ka dhaxeeya amba ka dhaxaloosan Xasan Sheekh iyo Cabdi Faarax Shirdoon Saacida. ilaha aan warkan ka soo xiganay ayaa sheegay in kulanka ka dhacay xafiiska madaxweynaha ay ka qayb galeen beelaha ka soo jeeda Digil iyo Mirifle, waxaana uu madaxweynaha kala hadlay sidii ay u taageeri lahaayeen qorshaha uu wato ee ah in meesha laga saaro ra'iisul wasaare Saacida. sidoo kale madaxweynaha ayaa kulamo noocan oo kale ah la qaatay shalay waxgaradka iyo odayaashii soo xulay mudanayaasha baarlamaanka. odayaasha madaxweynaha la kulmay ayaa u ballan qaaday in ay taageeri doonaan qorshaha Xasan Sheekh ee ah in meesha uu ka saaro ra'iisul wasaare Saacida. dhinaca kale, sarkaal ku sugan xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa noo xaqiijiyay in ra'iisul wasaare Saacid uu la kulmay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka, kuwaasoo uu ka codsaday in ay siiyaan kalsoonida si uu u sii joogo xafiiska. ra'iisul wasaaraha ayaa u ballan qaaday xildhibaanada uu la kulmay in miisaan culus uu ka siin doono xukuumadda cusub ee uu soo wado. isku soo wada duuba waxaa magaalada Muqdisho ka socda khilaafka ka dhex taagan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, waxaana xildhibaanada baarlamaanka ay u kala jabeen 2 qaybood oo kala taageersan Saacid iyo Xasan Sheekh. maleeshiyaadka Raaskambooni ayaa xalay iskaga baxay deegaanka Gudha ee gobolka Jubbada Hoose oo 7 ka hor ay kala wareegeen xarakada Al-Shabaab. wararka ka imanaya deegaanka Gudha ayaa sheegaya in guud ahaan ay faaruqiyeen ciidamada Raaskambooni iyadoonay halkaasi wax dagaali ka dhicin. dad ku sugan Gudha ayaa wariyaha rasmi media u sheegay in ciidamo fara badan oo watay gaadiidka dagaalka ay iskaga bixeen deegaanka Gudha, inkastoo aan la ogeyn ujeedka ka dambaysa ka bixitaanka Gudha. maleeshiyaadka Raaskambooni ayaa in yar kadib waxa goobta soo gaadhay oo gacan ku haynteeda la wareegay maleeshiyaadka Al-Shabaab. dhinaca kale, dad ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose ayaa ka cabanaya dil iyo dhac joogto oo ay ku hayaan maleeshiyaadka Raaskambooni ee ka amar qaata Axmed Madoobe. qofkii lagu tuhmo inuu la shaqeeyo Al-Shabaab waxaa laga qaadayaa telefoonka gacanta, waxaana soo badanaya dadka lagu dhacayo maalin kasta wadooyinka iyo dariiqyada, taasi oo ay wada ka dhiganayaan waxaad la shaqaysaa Al-Shabaab. qofkaasoon shuqulba ku lahayn Al-Shabaab iyo waxay ka shaqaynayaan ciidamada Raaskambooni, ayuu yidhi nin magaciisa qariyay oo u warramayay rasmi media. intaas waxaanu ku soo gabagabaynaynaa warkii aanu idinka haynay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. warkuna wuxuu idinka imanayay xafiiska Muqdisho, iminkana aan idinku wareejiyay xafiiska iyaga magaalada Gabiley iyo Qaamuuso. mahadsanid Burhaan. kaasi waxa uu ahaa waryaheena Burhaan oo istuudiyaheena magaalada Muqdisho inooga soo tabinaya warka. halka aad weli nagala socotaan waa raadiyo rasmi oo aad ka dhegeysaneysaan boggeena internetka ee rasmimedia.com. waxaa la soo gaadhay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena caawa, anigoo ah wariye Qaamuus oo idinka soo jeedinaya warka istuudiyaheena magaalada Gabiley iyo wariye Burhaan oo istuudiyaha magaalada Muqdisho idinkala daadihinay. waxaan idin leenahay dhammaantiin iyo dhammaanteeba sidaas iyo nabadgelyo. Hediyoga caanka